عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان umada Soomaaliyeed meel kasta joogtaanba halkan waxa weeye dhalinyarada reer Soomaaliland oo runtii kala wada duwan haday jilayaal tahay haday youtuber tahay iyo haday fanaaniin tahay anyway muhiimada saaka loo soo kalay waxa soo dhaweynta isma dhaanto kulli dhalinyarada shucuurtooda weydiin doonana mid ayaynu dul istaagi doonaa macnaha xaaladda sida wax u dhaceen bal halkan waxa taagan oo ka soo bilaabaya runtii anagoo soo dhaweeyaasha isma dhaanto maanta wala qaaday isma dhaanto oo dawladda la wareegtay wixii dambana wadi la socodsiin doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaanba gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland maanta waxaan joognaa Cigaal International Airport Hargeysa kulli dadka halkan taagan wajiyada waa wada garanaysan waa dad ku qaaliya waxaan halkan nimisaaka 10 subaxnimo waxaan u nimi inaan soo dhaweeyno isma dhaanto group ama team isma dhaanto kama xumino waqtigan naga baxay inta faraaleeg maanta kama qowmeynano waayo waxaan soo dhaweynay walaalahan jecel lahay inaan soo dhaweeyno dawladda Soomaaliland aad baan uga biyadiidsanahay wixii maanta halka ka dhacay anagoo jecel in la ixtiraamo anaga maadaama reer Soomaaliland ha jirayaalnahay dadka la xidhay dad jirayay fanaaniin yihiin waxaan horta jecel in lagu ixtiraamo ma dhicin wax lagu haystana Allahu a'lam kama warrami karno oo idima sheegi karno laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa oo hadda idin xaqiijinaynaa anagoo ciyaal hor taagan in dhalinyaradii 12 subaxnimo markii maadaama labadii duhurnimo xaajada askari la wareegtay intaana airport-ka dhexdiisa anaguna dabadda aan ku sugnay iyaguna airport-ka lagu hayay waxna tijaah markii aan weydiinay maamulkii ama qolyihii airport-ka ka mas'uulka ah lama sheegin wuxuu ma noo sheegay in airport-ka xagga sare laga haysto airport-ka ay ka sareyso cid haysataa sidaas marka dhalinyaradii lagu hayaa in la soo deyn doono iyo in xidhnaan doonana alla og idinka sii hor dhicmayno laakiin waxaan umada ogeysiinayna anagoo ku hadlayna dareenka ayaa ka hadlayna in dhalinyaradii jilayaasha iyo fanaaniinta ay maanta ka soo degay Cigaal International ay xiran yihiin taana aan ka biyadiidsanayo aan jeclayn qof jilaaya ama fanaana in la xidho isagoo fanku umada Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya waxaan Soomaaliland ka codsanayna dawladda Soomaaliland annagu dad baan reer Soomaaliland tagi kara Nairobi tagi kara Muqdisho tagi kara Garowe ma jeclin in loo dhaqmo si dhaqan way 5 saacadood ama 4 saacadood meel lagu haya dib nagu marka waxaan annaga codsanayna dadka si aan laga daayo qofka Muqdisho taga ama ka yimaada ama reer Nairobi ha noqdeen dadka waxaan oran lahaa hoos loo eego dadka jilayaasha iyo fanka ku dhex jira intaas ka baxay bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantii aad baad wada salaamay meel baad joogtaan runtii saaka waxaan dhalinyarada arkaysaa waa xawayaan bahdii reer Hargeysa jilayaagii fanaaniin lama kala arsana hadaad maqashaa fan iyo maxay tahay majaajilada isku mid runtii saaka dadkii 8 soo kacay ee xilligan ay hadda 3 ku sii dhowdahay taagan ee dareenkoodii iyo jabka ku yimid runtii aad baan uga xunahay taa aad waxa uga sii daran dawladda Soomaaliland ee maanta qaarkood kamid ah international cigaal maamulka haya ay kula wareegeen bahdii aan sugaynay aan soo dhaweynaynay iyaguna hadda ka hor lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho wax la Nairobi saaka aad iyo aad baan u faraxsan baan imid meeshan laakiin sayimkaan aad u niyad jabsan baan ka tagay sababtoo ah wax lagu qaaday horta war uma hayno inkastoo ay 12 subaxnimo ay soo galeen kooxdii isma dhaanto group la haystana dawladdu haysato markii aan wareysanay dadka meesha ka maamulka Cigaal International Airport ku dhex jirayna aan weydiinay wixii lagu xidhay sababtoo oo inuu noo sheegin xataa aan wax sax ah oon qaadano ayna noo sheegin ma oran karno waxaas lagu xidhay ama waxaas lagu haystaa laakiin soo horta 12 subaxnimo soo galeen intaas oo dhan waxay ku dhex jireen Cigaal International Airport anaguna dibadda ayaanu ku sugaynay iyadoo anaga ixtiraamtoona loo haynin laakiin se inta marka laga imaado isma dhaanto wax ma oran karno waxaas lagu haystaa ama waxaas lagu haystaa wax naga sareeyo lagu haystaa laakiin soo waxana loo sheegun amarku inuu sareeyo halka sare laga soo qaaday waqti la soo deyn doonana ma ogin waxaan sheegnana ma garanayno sababtoo ah wax sax ah anagu ma hayno ni sheegno maadaama tiin dadkaygiyo anagana sugaya inta marka laga imaado wixii dambe ee macluumaad ka soo baxa ama xaqiiqooyina gadaal baan kala soo socodsiin doonaa laakiin sayimka waxaan dhalinyaradan hoos leegan leenay maadaama fankiinahay meel walba waan tagi karnaa in fankana lagu ixtiraamana xaq baan u leenahay marka inta sanan uu ninka tagaya maadaama wax sax ah oo ku hadla aan garanaynin wixii dambe gadaal baan kala soo socodsiin doonaa insha Allah horta aad iyo aad maanta ku xunahay waxa meesha ka dhacay saaka waxaan imaanay anagu aad iyo u faraxsan imikana waxaan ka tagnay anagu aad iyo aad u niyad jabsan sida la sheegayna kooxdii isma dhaantay aad u sugayseen anaguna aan sugaynay aan soo dhaweynay oo reedu way xidhan yihiin imika hatana waxaan filowgeed waxaan hawsha galnaa si alaalay si lagu soo deyn lahaa ma garanayno sababta lagu xidhay ma siyaasadba ma hawl kala ma garanayno wax lagu xidhay oo reedu aad iyo aad baan uga xunahay insha Allah waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiga badan leh in lagu soo daayo
bismillaahi raxmaani raxiim horta markii hore halkan waxaan u nimi soo dhaweynaya farxad aan ku soo dhaweynay walaaladay ismadhaanto sidoo kale may dhicin markii hore saan u faraxsanayn imkuma faraxsanin anagoo murugaysan baan ka tegaynaa hase yeeshee waxa la yidhi waa la xidhay inamadii iyo hablii aanu sugaynay haba la xidha waxaanu jecelnahay sida ugu dhaqsaa badan in naloogu soo daayo oonu dowladda ka codsanaynaa annaguna dee haddaan nahay jilaayada aad iyo aad baan uga xunnay wallaahi horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba sidaad shucuubtiinna aad u kiciseen magacaygu waa maxamed cabdisaaq jaamac maxamed dayax anigoo ka tirsan team Diamond Films waxaan maanta saaka subaxii aan u soo kacnay sidii aan u soo dhaweyn lahayn walaalada iyo team ismadhaanto nooga imanayay Carliga iyo Kenya ama magaala madaxda Nairobi abaaro 11kii subaxnimo markay saacadu marayso ay soo cagadhigteen xaggaanu ka sugaynay in ay nabadqab iyagoo caafimaad qaba ay soo baxaan waxaa isla markiiba lagu bilaabay xaalad sheekin oo la jeegaraynayay intii muddo 2 saacadood ahayd wixii ka dambeeyeyna waxaanu aragnay ama indhahaygu ay qabteen xaajadii ciidanka oo qaadaya team ismadhaanto kolley dee dad waddan kale ka yimid maaha waa ummad Soomaaliyeed anigu kolley waxyaabaha lagu haysto walow aanay aad u caddayn haddana dee waxyaabaha soo gaadhaya dhammaantii waxaa ka mid ah in dee ay ma is odhan karaynaa youtuberadiina waxay noqdeen siyaasiyiin oo siyaasad baa la geliya meel kasta waxaan dhammaan ka codsanayaa cidda ku shaqada leh ama madaxda ku shaqada leh in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hargeysa kaliya magaalada Hargeysa maaha Soomaaliland oo dhan weligeed waxa lagu amaani jiray Soomaaliland ama Hargeysa in ay goob amaan tahay meeshii goobtii ammaanka ahayd ee la soo cagadhiganaya haddii marka qof waliba imaado xarig loogu daro kii imanayna xarig la geliyo kii ka tagayna markuu soo noqdo xarig la geliyo horta taa aad iyo aad baan uga dhiidhiina waxaanu walow ilaa maanta xilliga aad arkaysaan waa 2:00 waxaan nimid saaka 10kii sidaad arkaysaan dadkaas waxa u heelanaayeen oo u faraxsanaayeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen team ismadhaanto oo walaalo jilayaal iyo fanaaniin isugu jira waxaanu leenahay fanka siyaasadda laga daayo jilayaasha iyo youtuberada dib ha loo eego haddii dhalinyaradana hoos ha loo eego haddii kale kolley anugu cid baa ku hadhaysa magaalada Ismaaciil oo laga dareeri doonaa insha Allah haddii aan hoos loo eegin wax walba